madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada admis ee ku sugan garoonka diyaaradaha maxamed dheere ee magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle. dabageed ayaa admis kala shiray ammaanka guud ee garoonka, wadada isku xirtay jowhar iyo garoonka oo uu dib u dhiskeedu socdo. wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab oo lagu wado in dhowaan uu ka bilowdo galbeedka hirshabelle oo inta badan gacanta ay ku hayaan ururka al-shabaab. ugu horeyn madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed ayaa waxa uu bogaadiyey dadaalada admis ee ku aadan sugidda ammaanka iyo guulihii wax ku-oolka ahaa ee laga gaaray dagaalkii lala galay ururka al-shabaab oo goobo badan laga saaray. dabageed ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dib u dhiska wadada isku xirta eraboorka iyo magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle iyo kaalintii weyneed ee ay ku lahaayeen admis, isagoo uga mahadceliyey wadashaqeynta xoogan ee kala dhexeysa admis hirshabelle. madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabelle ayaa ku dhawaaqay in dhowaan loo diyaargaroobo howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab, kuwaasi oo ka bilaaban doono galbeedka hirshabelle oo la doonayo in ururka al-shabaab guud ahaanba laga saaro. maalmihii lasoo dhaafay maamulka hirshabelle ayaa dardargelinayay dadaalada howlaha hortabinta u leh bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer hirshabelle, iyadoo si isdabajooga loo fuliyey howlgallo lagu xaqiijinayo amniga, kuwaasi oo laga sameeyey caasimada hirshabelle ee jowhar. howlgalladan ayaa inta badan waxaa lagula dagaalamayay masoomayaasha, waxyaabaha ammaanka doorsha, falalka lidiga ku ah ammaanka xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. shariif suuriya xaashi muqbaahiyaha honkebal hirshabelle.